بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، halkan mala waxaa la rabaa in Soomaali kelmad loo sheego meel ay joogtaba. Nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wassalaam afar maalmood gudahood buu 3 jeer khudbadeeyay. afar maalmood ayuu 3 jeer khudbadeeyay nabigu alayhi salaatu wassalaam. Carafayada la joogo khudbadeeyay, yawm nahar buu khudbadeeyay, اليوم الثاني من أيام التشريق وحدوذي، وأفر مع الماضي يصدح خطبات. وحي كتب الحديث يا علماء الريان صدح ذا خطبات. انت بدرنا يسكوح شيء، انت أبنا مسلم وحوق الدقية ولها وحن دين كدقية ديجين يا مالكين يا عرضين شرفتين هنا وحياشان. intaas waa idinka xaaraan. markaasuu nabigu wuxuu ku celceliyay alayhi salaatu wasalaam, falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd. markii la yidhi dimaaga iyo amwaalka iyo acraaduba xaaraan bay idinka yihiin, sida maalmahan xurmada leh iyo beledkan xurmada leh xaaraanta u yahay, ayuu nabigu wuxuu yidhi aniga gadaashay gaalaha u noqonina badhba badhka kale madaxa ka jaro. Soomaali waxaan weydiinaynaa markaa, من نبي محمد بعد دقيسن مسودك كل دقالن أما سياسي هالنقطة أما أضي قبيل هالنقطة. من نبي محمد بعد مغلي عليه الصلاة والسلام مسكها أنت مغشابات آخره ريمان دون تادق وكاتا وصعدة. يسوع النبي عليه الصلاة والسلام حديث يسوق الماميو أهل عركة دتك الدجن يدلك عدة دجن هذا يسوق تجان قف مسلم دلستي لا أكبهم الله في النار إلهي دمان تود نار بكوكورا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا النبي يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، ذنب والبين إلهي دافع بالاركا إلا من مات مشركا متقال لما كل طي أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. labada xadiidka nabigu wuxuu ka soo reebaya kuwa dambigooda la dhaafay inay ka tirsan bale wuxuu kaloo nabigu tilmaamay alayhi salaatu wassalaam qofka qof mu'mina dila oo faqtabata biqatli oo ku farxa dilkiisa. waxaan youtuberadu ay shubayaan iyo dadku waxaan ku sheeg iyo fadhi ku dararku reer hebel baan leeyahay intan baa ka dhintay inta qofka qof mu'mina intuu dilo كفر حد الكيسة لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. سنية فرلطون الله كما أقبل بالليل. سومالي موحي الربطين إلهي السنية فرلطون كأقبل موحي الربطين إلهي اللعلوده ما انت دينا كلام مدى راعد وركي سباد إلهي اللعلو بدون سبحانه وتعالى. وحاول نبقى تلمامي عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن التوبة. وحان شيء يودم وحادث حسنة والصحيحة. أيها الأحبة، هذين الربنا دبتنين يحلل أنتو صومالي أنت الدولة شيءته مع إثيوبيا كتر سكودر كل الكلام سكود الدر. أنت الصومالي حكمت ديك بك الصعدة، أنت الصومالي حكمت ديك كالصعدة عد كلامها هو يدا iyaga isdilaya. nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanay dadka muslimiinta ilaahay kitaabkiisa isku xukumin jacala allahu ba'sahum baynahum. ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda. haddaynu rabno inaynu badbaadno وإننا نحن وروح نسكهنا إلهي كتاب كيسان وبرنجنا وحي نسكهنا بنادم هو استبطأ دب معها آدم هو استبطأ لكن سومالي دو ضدك حل كودو دبتو دا كدي بدني هاي هل قفا لدي ليا ما حالا ينوغدقنا سدح كسو ديلا والقف بيشوك تيقف أنك وضع هضل محال لقى يلي قف كان يديمي تي الله بطمول للدل maxaa xal ah
waxa xalayn shan reer hebel loo dilo kuwa kalena maxay xal hayaan shan bay naga dilanay toban loo dilo ilaa inta naarta ku wada gurmaysa ila meel kale kuma socotaane reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan qolana qolada kale inaanay ka boos badanin waxaan ku soo koobayaa intiina halkan fadhida ilaahay bariya in dadka ilaahay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina inta warkan meelun ka maqlaysana waxaan leeyahay bal waxaad isku daydaa ma ilaahay baa kula weyn mise bini'aadamka kula weyn ma ilaahay warku ku yiri baa kula weyn mise aadanuhu warku sheegayo wuxuu doonaba ku sheego ayaa kula weyn aakhira maxaad ilaahay la hortagi dagaal baad ku sii ordaysaa waad geeriyooni soo naar ma ilaahay uu igub naar baan doonaya waxaad la ordaysaa maaha kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war hadaad magac iyo maamuus doonaysaan xataa dunawiya aakhiraba hadaydan rabin ee magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan nabigu calayhi salaatu wasalaam inanku awow ahaa intuu eegay buu wuxuu yidhi inankaygani waa sayid waa madax waayo laba fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kala qaboojinaya war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslimaad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyada waa kuwa salaatiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culamadee ka agdhadhow meelaha la isku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo ku kala celiya sallallahu alayhi wa sallam